بسم الله الرحمن الرحيم. maanta anigoo ah afhayeenka maamul goboleedka Awdal State ee waqooyiga America waxaan halkan maanta u soo fadhiistay inaan ka hadlo arrin maalmahanba saxaafadda ku jirtay oo aan la wada socono arrintaasi oo ah fanaanka weyn ee Farxaan Xidig oo maamulka Hargeysa ay ku xidheen magaalada Hargeysa. waxaan anigoo ku hadlaya magaca shacbi weynaha Awdal State iyo kaygaba waxaan rabaa halkan in cambaarayn dusha uga tuurno maamulka Hargeysa kuna cambaarayno xariga ay u geysteen fanaan Farxaan Xidig oo ah fanaan Soomaaliyeed oo ah fanaan u heesa cid kasta oo afka Soomaaliga ku hadasha. Farxaan waa nin haysta dhalashada waddanka Ingiriiska. waxaanan u sheegaynaa dowladda Ingiriiska in badanna waan kala hadalnay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Ingiriiska inay arrintaa wax ka qabtaan. hawsheedina way socotaa. waxaanan u sheegaynaa beesha caalamka in maamulka Hargeysa uu yahay maamul ay maamusho jabhadaasi oo ku hubaysan dhaqaalaha beesha caalamka ay siiso. waxaan la soconaa in dhibaatooyin iyo tacadiyo xuquuqda aadamaha ay ka dhacaan ama ay ka jiraan ama ay ka taagan yihiin deegaanada Awdal State, deegaanada Khartoum State, deegaanada Maakhir State. sababtuna waxa weeye dhaqaalaha beesha caalamku ay bixiso ayaa waxaa lagu iibsadaa hubkaasina waxaa lagu dilaa, lagu caburiyaa, lagu barakiciyaa shacab nabdoon oo deegaanadoodii si nabada u jooga. waxaan la soconaa in habeen kastaba dad lagala baxo guryahooga saqda dhexe loo soo daato iyadoon amar loo haysan in guriga la baaro. haddii qofka laga shakiyo ama gurigiisa laga shakiyo waaran baa loo soo goosan karaa, si sharciya loo soo mari karaa, sifo sharciya ayaa qofka lagu baari karaa gurigiisa. waxaan la soconnaa in hoteelada ka mida magaalada Boram ee xarunta maamul goboleedka Awdal State toddobaadii la soo dhaafay iyo guryo ka mida oo ku yaala oo wax looga shakisan yahay aysan jirin, in dadkii hurday la garaacay, la baadhay, telefoonadii laga qaatay, laabtobyadii laga qaatay, iPodadii laga qaatay. dadkaasi waxay geysteen iyo wax looga shakisnaa midna ma jirin. oo qof haddii laga shakiyo shakhsiga in la abaaro cidiidan ma jirto. dadka deegaanka ku noolay waxay ka cabanayeen oo ay sheegayeen inayna haddii meesha ay degan yihiin ama hoteelka ay degan yihiin haddii cid soo gasho wax la heli karo wey. haddii layn soo galo wax la heli karo wey. maaha in dad aan waxba galabsan oo aan mataqaanaa waxa ay ku jiraan aysan jirin in la garaaco, la jirdilo, la xidho, si doon laga yeelo. taasina waxa weeyaan waxay ka mid tahay waa gumaysiga iyo caburinta ee laga dhaxlay maamulka Hargeysa wey. waxaan u sheegaynaa maamulka Hargeysa oo mar labaad iyo mar saddexaad u sheegaynaa inay si dhaqsa u soo daayaan Farxaan Xidig oo ah nin lagu haysto waxaad aaminsan tahay Soomaali weyn waxaa aaminsan Siiraanya aaminsan Soomaali weyn. iska daa cid kale, wasiiradiisa iska daa, shacabka majority waxay aaminsan yihiin waa Soomaali weyn. Siiraanya haddii maanta hawshiisa la ogaan lahaa waxaa ka soo bixi lahayd inuu doonayo Soomaali weyn, waayo wuxuu og yahay dhibta maanta haysata. dhibaatada maanta haysata waa ka odhan kari la dadkiisii oo la xasuuqayo. maanta wuxuu odhan kari laayahay dadkan xasuuqa laga daayo. dadkiisii oo la xasuuqayo ayuu odhan kari laayahay dadka xasuuqa laga daayo. taasaa kuu daliila Siiraanya maanta meeluu ka soo noqdo inuusan joogin. ma hadli karo, hadal ma celin karo, Ethiopia hadal kuma celin karo. sidaa daraaddeed waxaan leenahay waryaan laysku dacatiin. Farxaan Xidigun maaha dadka dhibaatada loo geysanayo. waxaan ogeyn in wariyaal lagu xidhay gobolka Awdal. wariyahaasi lagu xidhnaa muddo ku xidhnaa gobolka Awdal waxa uu xidhnaa heesta calanka Soomaaliya. dad weydiiyey yaa garanaya heesta calanka Soomaaliya, yaa garanaya heesta calanka Somaliland. Somaliland wax jira maaha, cid garanaysaana ma jirto. ummaddu kii ay ku soo barbaartay, calankii ay ku soo barbaartay ayuu ilmo kasta garanaya. ilmaha ku dhashay North America haddii la weydiiyo la waa maxay aslaanta calanka Soomaaliya wuu ku sheegaya. marka wax Siiraanya xataa uma garanayn, wax ummadda gobolka ku nool ana garanayn.
in la isku caburiyo ma qofna fikirkiisa laguma caburin karo waxaan u sheegaynaa maamulka Hargeysa cidna fikirkiisa laguma caburin karo qofku waxa uu xor u yahay wadanka Soomaaliya meesha uu ka degayo iyo cid uu taageerayo Soomaaliyana Soomaali baa leh cid lagu caburin karo mabda Soomaaliyeed bad aaminsan tahayna de ma jiro haddii laakiin Somaliland go'aansatay inay dadka ku caburiso de horta kuwa Hargeysa jooga ee xamar ka yimaada baalin walba way ka xamar ka yimaada ha caburiyaan laakiin in dadka qaar ma taqaanay dadka la kala sooco oo la kala saaro oo qaarna lagu tacadiyo qaarna ma taqaanay ay si xora ay Hargeysa u joogaan oo Burco u joogaan oo meel walba u joogaan ilaa ma taqaanay iyagoo la og yahay inay xildhibaano xamar ka mid yihiin iyagoo la og yahay inay mas'uuliyiin xamar jooga yihiin inay Hargeysa joogaan sadda lagu xidho fikir baad aaminsan tahay taasina waa wax isweydiin u baahan weeyaan marka waxaan leenahay shacabka reer waqooyi wadada walaalaa yaan dhib iyo dhibaato dadka kala dhex dhigin maamulka Hargeysa waxaan leenahay arrinta waa inuu ka waantoobo si degdeg ah u sii daayaan Farxaan Xidig oo ah nin haysta sharciga wadanka Ingiriiska arrintaasina waan u gudbinay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ingiriiska insha Allahna waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan leh ay war uga soo saari doonaan haddii la yiraahdo shacabka reer Awdal State-na waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo waxaana leeyahay reer Awdal waxaa loo baahan yahay in la midoobo loona midoobo dhibta iyo tacadiga si looga baxo waa in loo midoobo arrimaha maanta taagan qofkiina xidhan dhibaatadu haysatana waa in lagu gargaaro haddii aad si alla sidii aad arrin maxaan ku raadaya wax uga qaban karayso in lagu qabto dadkuna inay hadlaan baa loo baahan yahay dadka banaanka jooga cid xidhaysaa ma jirto ninka gudaha jooga waa la gartay inuu baqayaan la xidho laakiin wuxuu ku jiraa ma taqaanay gumeysigu ku hoos jira laakiin ninka banaanka jooga ee walaalkii oo dhibaato ama tacadi loo geysanayo ka hadli waaye oo ma taqaanaa ka aamusa waxa loo arrinkaasi waxa weeyaan waa wax laga qurux badan yahay dadku waa inay isku damqadaan oo is taageeraan oo is caawiyaan ayaa lanaga rabaa marka waxaa laga rabaa qof kasta oo Awdal State meesha uu joogo inuu ka hadlo una hadlo wixii dhibta ee maanta taagan ee arrintii maanta ninka Farxaan Xidig haysata in qof kasta arrintii halka uu ka taagan yahay uu ka hadla looga baahan yahay oo ka soo saaro shirjirayd qof kasta meel kasta uu joogo waa xubin kamid ah Awdal State waxa la rabaa marka qof kasta inuu halka uu joogo uu ka hadlo kana cambaareeyo maamulka Hargeysa aad iyo aad baan salaamayaa waxaan leeyahay guul iyo gobonimo Awdal State Farxaan Xidigna waxaan rajaynayaa khayr waxaan rajaynayaa in la soo deyn doono haddii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad baan salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh